بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil emailka sida caadada ah info@sologroups.com waxaan baran doonaa 10 aad u xiiso badan oo la yiraahdo Windows 8 and 8.1 tweaks marka ereygan waa wax ka bedelida tweak hadii aad maqashid sidii lagu soo dhisay wax baa laga bedelay marka wuxuu leeyahay wax ka bedel isla markaana bedel modify and change isticmaalida Windows 8 iyo 8.1 waxaan filayaa inuu aad u adkaaday 10 badan laga sameeyay qaabka loo bedelo qaabka lagu sameeyo iyo waxyaalo kale aad u fara badan marka waxaan ku eegaynaa waxyaalahan isleenahay isticmaalayaasha way fudeed ay ka dhigaysatay isticmaal lahaayeen Windows-gan cusub ee dhowr ka sano soo socda la sii isticmaali doono marka ugu horeyn waxaa halkan aan ku aragnaa desktop ayaan ku aragnaa halkan screen lock ayaa la yiraahdaa xilliga cashirka la sameeyo waad aragtaan automatic ahaan halkan uu yimaada wuuna isxiraa marka haddii aan halkan aan riixo waa inaan geliyaa passwordka aan u sameeyay in loo isticmaalo Windows-ga ama operating system-ka marka screen lock-ga wuxuu sameeyaa mar walbo aan ilbiriqsiyo aan la isticmaalin Windows-ka hore ayuu ka soo qabtaa taasna xoogaa waxay dib ku noqotay isticmaalayaasha oo runtii aan u bogin sababtoo ah waxay doonayaan operating system-ka sidii kaga tagay inay ugu soo laabtaan oo waxba aan isxirin tabcan haddii loo isticmaalayo dhanka iyo haddii loo isticmaalayo server uu ku xiran yahay workstation uu yahay automatically isku xiraya wuxuu ku xiran yahay serverka laakiin kan dhibka ugu weyn ee screen lock lagu arko wuxuu noqonayaa in markii laga tago isla markii uu soo laabto tusaale ahaan haddii halkan saan u baxno oo screen lock-ga haddii laga baxo wax yar kadib saan wuu soo laabanaya si automatic u soo laabanaya wuu xiraya gabiyan ayuu xiraya waa in aad ku laabataa aad isticmaashaa passwordkii aad u samaysay waa inaad isticmaashaa marka qaab aad u fudud ayaa looga hortagaa waxaanu baran doonaa qaabka looga hortago iyo isla markaa disable looga dhigo waxa kale lagu sameyn karaa waxyaalo kala duwan inagoo isticmaalayna software kala duwan oo lagu sameeyo tweak-ga ugu horeyn waxaan tegayaa desktop-ka ayaan tegayaa markii aan tago waxaan tegayaa dhankan midigta ayaan tegayaa waxaan leeyahay search kadibna waxaan ku qorayaa group policy edit .microsoft console ayaan tegayaa marka xusuuso wuxuu la shaqeeyaa oo keliya professionalka enterprise-ka iyo kuwa home-ka lama shaqeeyo marka kan ayaan riixayaa markii aan riixo waxaa noo soo baxaya group policy oo aan ku naqaano serverada iyo kuwa kale waa ujeeda waa local kadib kan ayaan waxaan ka dhigay extend si loo wada arko wuxuu u kala yaalaa computer configuration iyo userka waxaan isticmaalaya kan computerka kadibna waxaan isticmaalayaa administrative templates ayaan isticmaalaya diyaarka marka kadib waxaan isticmaalayaa C panel ama control panel ayaan isticmaalayaa kadibna waxaan riixayaa personalization kan ayaan riixayaa waxaan halkan ku aragnaa haddii indhahan ku qabanno waxyaalo aad u fara badan haddii aan halkan sii weyneeyo waxaan ku aragnaa inuu leeyahay not configured ama waxba lagama bedelin waxaan leeyahay do not display the lock screen ayaan laba jeer riixayaa markii aan riixo waxaa ii soo baxaya do not display lock screen imika wuxuu ku fadhiyaa not configured ama not configured waxba lagama bedelin haddii aan yiraahdo enable waxaa dhacaya this policy setting control whether the lock screen appears users haddii kan enable aad ka dhigtid wuxuu ku leeyahay isticmaalaha uma baahna in uu ku galo control alt and del inta uusan dhexgelin systemkiisa saa awood disable ayaa laga yeeli karaa waxaan leeyahay apply okay ayaan leeyahay dhankan saa ku aragtaan wuxuu ka yahay enabled ayuu ka yahay marka qaabkaas waa mid qaab kale waxaa jira looga sameyn karo dhanka iyo registry-ga marka waxba ka bedelan registry-ga tusaale ayaan u eeganaa keliya waxaan ku qoraynaa halkan reg edit ayaan ku qoraynaa ama registration edit saan ayaan u furayaa markii aan saan u furo registrationka waa taqaanaa suqaab ayuu u shaqeeyaa waxaan raacayaa HK local machine-ka ayaan raacayaa kan kadibna waxaan sii raacayaa software oo halkan ah kadibna waxaan sii raacayaa policies
طبعا Microsoft طبعا Windows marka kan extend ayaan ka dhigayaa si loo arko waxa halkan ku jira Windows ka bacdi waxaan eegaynaa personalization ayaan eegaynaa marka personalization ka markii sana u tagtid waa in uu ku dhex jiraa lock screen haddii aadan ku arkin waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo D-word oo naqaano dhanka gacanta midig ayaa lagu riixaa kadib new ayaa leedahay waxaad isticmaalaysaa D-word 32-bit value oo D-word 64 mar walba waxay ku xiran tahay systemkaaga marka 32 ayaan isticmaalaynaa waxaan ku qorayaa no oo sidan capital letter lock screen ayaan sidan ugu qorayaa marka no lock screen manual ayaan u sameynay markaasaan u qoro value specified already exists marka waxaan filayaa wuu jiraa kan waana kan u jeednaa delete ayaan leeyahay wuu jiraa no lock screen waa kan marka kuma sameyn kartid iminka value wuxuu ku fadhiyaa saa ku aragtaan hal ayuu ku fadhiyaa kaasoo ah kii halkaas ka soo bedelay marka wuxuu ku imaanayaa sidan value-ga eber ayuu ku imaanayaa kaasoo ah in uusan ku shaqayn eber ayuu ku fadhiyaa hexadecimalka ah okay haddaan idhaahdo waa enabled waaye laakiin iminka waa disable markuu hal yahay marka haddii halkan zero aad ku aragtid ama eber aad ku aragtid waa in aad ku bedeshaa one waa inaad ku bedeshaa si uu u noqdo marka value-ga u shaqeeyo marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa okay halkan saan ku aragno Windows 8 Twig ayaa halkan noo yaala oo aan u isticmaali doono software ku jira software khafiif runtii 1.12 megabyte gabi ahaanba marka waxaan sameynaya softwareka ayaan furaya waxyaalo badan ayaa ku jira waxaan doonaynaa ugu horreyn inaan isticmaalno Windows key kan Java ayuu update ka leeyahay Windows key finder kan waa muhiim sababtoo ah waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in aad ilowdid furihii aad u isticmaalaysay haddii aad ku samaysid oo kale format oo aad doonaysay mar labaad inaad ku duubtid marka haddii aan idhaahdo right click aan idhaahdo waxaan odhanayaa run as administrator minimas ayaan leeyahay furaha isla markii productiga hore iga soo qabanaya kana ujeeda copy aad ku samaynaysaa waana soo qaadaysaa kani wuxuu kuu soo saarayaa computerkaaga operating system ku duuban furihii loo isticmaalay oo ah product key waxaan la yidhahdaa Windows 8 product key viewer wuxuu la socdaa casharka oo aad download ku samayn kartid marka waxaa kaloo jira dhib weyn ayaa jira oo lagu arkay tusaale ahaan haddii saanaan idhaahdo dhankan star ma taalo casharkan waan kaga hadalnay waan bedelnay marka haddii aan rabo inaan tago changing waxaa jira qaab disable looga dhigo hot cornerska kan midigta ah charms bar ayaa la yidhahdaa app switch list marka kan ugu daran ee inta badan laga soo sheegto hadda ayaan arkaynaa haddii halkan aan tago halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay settings markaan idhaahdo change PC settings isla markii waxaa soo baxaya log screenkii oo aan bedelnay waa kan ugu daran waxba aan laga qaban karin mar walba wuu jooga haddii aan isdhaahdo PC device wax ka bedel ama account tag halkan ka dhaqaaqi maayo halkan wuu yimaadaa marka waxaa lagu noqday fed up waxaa la yidhahdo dadka aad ayay u naxeen kan wax uu sameeyo haba yaraatee la garan maayo switch between apps ayuu ku leeyahay swipe in from the edge dhankaasi kasoo masax ayuu ku leeyahay si aad applicationkii ugu dambeeya u laabatid sida la sheegay waa Windows 8 iyo Windows 8.1 waa appka loogu naxib yahay kasoo baxa sababtoo ah haddii aan rabaxa halkan hoos ku yaalla ma tegi karo dhib ayuu ugu yahay marka sida lagu habeeyo oo loo bedelo aad ayuu u fudud yahay desktop ayaan ku laabanayaa markii aan tago desktopka halkan ayaan tegayaa right click ayaan leeyahay property ayaan leeyahay waxaa ii soo baxaya taskbar and navigation properties ayaa ii soo baxaya markuu sidan u soo baxo waxaan sameeyaa navigation ayaan tegayaa corner navigatorka kii hadda aan soo aragnay oo charms bar iyo app switchka halkan ayuu yaallaa when I point the upper right corner show the charms waa kan when I click the upper left corner switch it between recent apps uma baahnayn kan iyo kan waan ka saarayaa apply ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay dabcan waxaan u baahanahay systemka in aan ka dhigo lock off waa inaad ka dhigtaa marka waxaan sameynayaa halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay setting userka iminka isticmaalaya ama waxaan leeyahay restart ayaan leeyahay wuu soo laabanayaa markuu soo laabto kan mar dambe la arki maayo marka laakiin ma doonayo inaan restart u diro marka ugu dambeysa casharka aan dhammeyn ayaan restart u dirayaa si uga baxo si kale uga bixin maayo halkan iyo mar walba uu taagan yahay dhibkaasna waa lagu arkay marka waxaa kaloo jira haddii desktopka aan tago waxaa halkan noo yaala isla softwarekii
is back plus Windows 8.1 oo ah versionkan isagana waan furayaa ugu horeyntii waxaa muhiim ah halkan inaad raqsid waxa ku jira applicationka sidoo uu shaqeeyo ugu horeyn waxaan leeyahay registrationkan aan sameeyay ayaan right click leeyahay waxaan leeyahay right click and run double click wuxuu ku leeyahay adding information yes okay aad leedahay kadibna waxaad ku duubaysaa softwareka si caadi u duubaysaa softwarekan install for me qof walba oo isticmaalaya ugu duubayaad leedahay halkan ayuu si caadi u duubmaa kadibna wuxuu shaqeynayaa si caadi u shaqeynaya marka waad aragtaa markii uu soo laabtan waxaan arkaynaa in configure now ayuu ku leeyahay star ayaan leeyahay isla markii wuxuu sameynayaa configurationka ayuu noo sameynayaa marka waxaad aragtaa appkii halkan inuu ka tegay marka waxaan sameynaynaa halkan haddii aan riixo waxaan aragnaa in star menugii uu soo laabtay haddii aan doono kii originalka ahaa halkan ayaan riixaya waan ku laabanayaa halkan haddii aan kusoo laabto bal markaan aan tago halkan star menuga aan tago geeskan aan tago change setting aan tago kan haddii aan tago log screenkii waa kan PC devicekii kan markii aan restart kusoo sameyno systemka ayuu caadi uga baxaya marka log screenkiina waa kan halkan ayuu sidaan ka yahay marka kan qaabkaas ayuu u shaqeeyaa marka star menugii isla meesha ayaan ku laabanayaa markii aan ku laabto halkan ayuu saan igu yaallaa marka haddii aad doontid inaad wax ka bedeshid dabcan waa ujeedaa kan dhibkuu nagu hayo laakiin waa disable iminka markaan ka saarno wuxuu noqonayaa qaab kale looga saarno waa jirta laakiin qaabkan ayaa ugu fudud hadda aan sameynay marka waxaa kaloo sameynaynaa in aan sawir aan ku xirno haddii aan tago waxaan tegayaa desktopka ayaan caadi u tegaya halkan sidana markii aan tago dhankan waxaan kasoo saaraynaa search ayaan leeyahay waxaana doonaynaa in aan soo qabano meeshii aan sawirka aan kaga bedeli lahayn marka sawirka aad ayuu muhiim u yahay wuxuu sameeyo shaqadu qabto wuxuu sameynayaa controlka ayuu sameynaya controlkaasoo ah in aan halkan ku qoro sign in ayaan ku qoraya sign in options saan ayaan u furayaa markii aan furo wuxuu u baahan yahay in aad haddii systemkaaga windowga password lahayn waa in aad password aad u samaysaa kadibna waxaad leedahay picture password halkan ayaa waxaad leedahay ad ayaad leedahay waad u jeedaa password waa inaad gelisaa marka waxaad arkaysaa isticmaalo walba dhib aad u weyn inuu haysto ayaad arkaysaa okay ayaan leeyahay maxaa la doonaya halkan in laga soo geliyo sawirkii wax walba maxaa ujeedaa kan marka waxaanu sameynaynaa iminka waxaan doonaya halaas in la arko waxaanu sameynaynaa waan ku laabanaynaa waxaan leeyahay sign out kaliya ayaan leeyahay marka oo baahan restart inaan ku sameeyo sign out markii aan sameeyo kaasi mar dambe la arki maayo iminka waxaan ku noqonayaa isla isticmaalihii keliya ee systemkan loo isticmaalay ayaan ku laabanayaa saan ku aragno marka sign outkii waa ka soo laabtay markuu soo laabtay oo ujeedaa weli switch between appskii sidiisa ayuu ku soo laabtay marka qaabkii hore oo ahaa right click halkan hadduu kuu shaqayn waayo qaabka waxaad aadaysaa dhanka iyo group policy ayaad aadaysaa marka halkan ayaan tegayaa ama kan oo ii shaqayn halkan ayaan tegayaa waxaan ku qorayaa halkan gb edit.microsoft ayaan tegayaa sidii hore inuu kugu shaqeeya laga yaabaa mararka qaarkood ma shaqeeyo hadduu shaqeynin macleesh halkan ayaa la tegayaa iminka waxaan isticmaalaynaa user configuration ayaan isticmaalaynaa markii aan isticmaalno waxaan isticmaalaynaa administrative templates ayaan isticmaalaynaa kadibna waxaan isticmaalaynaa windows component ayaan isticmaalaynaa windows component waxaad isticmaalaysaa hui ayaad riixaysaa sidan u riixaysaa kadibna waxaad leedahay disable kan aan yara weyneeyo kan si loo wada arko marka kan ayaa laga wadaa disable help tips laba jeer ayaan riixayaa kan wuxuu ku tusayaa by default window will show the user's help tips until the user has successfully completed scenario enable ayaad leedahay isla sidii apply okay ayaad leedahay marka waxaan u baahannahay kan waan ka baxaynaa halkan ayaan tegaya waxaan leeyahay sign out ayaan leeyahay dabcan isla sidii ayaan kusoo laabanaynaa iminka tijaabo ayaan ku sameynaynaa soo laaban maayo qaabkaas ayaa looga baxaa marka sign out ayaan leeyahay bal aan tijaabo aan ku sameyno waxaanu tegaynaa geeskan ayaan tegaynaa ama waxaanu raadinaynaa oo aan leenahay search waxaan leenahay dhanka iyo PC settings ayaan halkan tegaya PC settings ayaan riixaya isagoo PC settings ayuu aad u jecel yahay halkan inuu kasoo baxaa la rabaa laakiin saa ku aragtaan iminka soo bixi maayo sababtoo ah disable ayuu noqday wixii aad doontid ayaa ku samayn kartaa halkan xitaa PC setting
search and apps halkan waa laga samayn karaa disable waa laga dhigi karaa notificationka meeshiisa waa wada disable hadda halkan waa ka soo baxaa marka halkan haddaan idhaahdo wuu tusaya application lock screenka turn on my screen when I get a call play sound waxaana halkan ayuu ka soo saaraya marka waxaa kaloo jirta haddii aan ku laabto meeshii hore waxaa kaloo jirta in aan mar walba aragno ms config haddii aan tago halkan waxaan ku qorayaa ms config ayaan ku qorayaa Microsoft configuration waxaa dhacda in dhankan iyo toolska haddii la tago change UAC settings oo ka timid user account control launch haddii aan idhaahdo computerada halkan ama halkan ayay ku yimaadaan marka dhib ayay noqonaysaa mar walba uu soo boodaya kan xilliga lagu duubayo softwareka saa awgeeda waa in right click inta lagu sameeyo la yidhahdo run as administrator marka kan waxaa jira solution fudud ayaa jira isagana twiga ka mid ah oo lagu sameeya ayaa jira marka waxaa laga sameynayaa dhanka iyo registryga ayaa laga sameynaya marka waxbaa ka bedelin reg edit ayaan ku qorayna halkan registration edit enter ayaan leeyahay waa kana ujeeda kan ayaa mar walba soo baxa marka hadduu kan ku yimaado vista hadduu ku yimaado windows 7 windows 8 serverada ugu dambeeya mar walba halkan ayaa yes ayaad leedahay waa security extra laakiin looma baahna aad ayuu dhib badan yahay marka waxaanu tegaynaa isla meeshii ayaan ku laabanay waan wada xiraynaa marka waxaanu raacaynaa iminka local machine software ayaan ku sameynaynaa local machine waxaan leenahay software oo sidaan u furan ayaan xirayaa iminkana waan furayaa software markii aan furo waxaan u tegayaa Microsoft kii hore ayaan raacaynaa oo noo furan Microsoft waa furan yahay ku aragtaan Windows kadibna current version ayaan saan u furaya current version markii aan furo waxaan eegayaa internet setting oo halkan ku yaala ayaan eegaya current kadibna waxaan eegayaa internet setting Windows current saan ayuu xiran yahay saan ayaa leedahay internet setting marka markuu sidan kan u yahay current version oo aan la soconin policieska ama systemka aan la soconin waa in aan inaga ku darnaa marka current version desaan u eego aan u furo waxba kuma jira halkan ujeeda waxaad leedahay right click ayaad leedahay new ayaad leedahay waxaanu sameynaynaa d word 32 bit ayaanu sameynaynaa kadibna waxaan leenahay aan ku qorayna halkan enabled waxaan leenahay UA ayaan leenahay halkan ayaa laga bedelayaa modificationkana value waxa laga dhigayaa 0 ayaa laga dhigayaa sidiisa laakiin halkan doonayna inaan ka sameyno sababta waxaanu doonaynaa kan haddii aan idhaahdo delete waayo ma doonayno inaan wax ka bedeshaan halkan laakiin qaabkan ayaa loo sameeyaa waxaa halkan noo yaala software ayaa noo yaala halkan kaasoo ah disable lock screenka kana waxaa noo yaala softwarekan iyo waxaa jira software kale oo aan doonayno in aan kusoo darno oo la yidhaahdo twig lagu sameeyo disable enable laga dhigo laakiin sida ugu fudud waa taqaana halkan ayaa tegaysaa waxaad ku qoraysaa halkan ms config enter ayaad leedahay halkan ayaa tegaysaa change launch ayaad leedahay halkan ayaa leedahay okay yes ayaad leedahay systemka restart ayaa ka dhigaysaa mar damba soo laaban maayo marka waxba ha ka bedelin registryga iyo twig waxba ha ka bedelin halkan ayaa ka sameynaysaa ugu dambeyntii intaanan ka bixin waxaanu sameynaynaa dhanka iyo sawirka lagu galo windowga kaasoo haddii aan tago halkan ayaan tegayaa waxaan ku qorayaa pc settings ayaa halkan ka tegayaa iminka ka welweli mayna kiinu noo soo galo markii aan tago halkan waxyaala badan ayaa ku jira appska ayaan raadinaynaa search ayaan leeyahay halkan search ayaan leeyahay waxaan ku qorayaa pc setting waxaan ku qorayaa accounts ayaan leeyahay search marka accounts halkan ayay yaalaan kadibna waxaan leeyahay sawirka waxaanu isticmaalaynaa halkan kan ayaan ka isticmaalaynaa sawirka طبعا meesha pictures waxba kuma jiraan waa in dhanka pictures aad gelaysaa marka halkan ayuu soo galayaa assign option ayaa tegaysaa passwordkii adkaa add picture ayaad leedahay horaan usoo aragnay iminka waxaanu gelinaynaa passwordkii ayaanu gelinaynaa markii hore halkan kii naga daboolayay marka waan ka qaadnay choose ayaa leedahay طبعا this pc waxba kuma jiro waxaan tegayaa desktopka ayaan ku laabanayaa halkan ayaan furayaa kadibna waxaan leeyahay pictures ayaan furayaa kadibna waxaan kusoo jiidayaa sawirkan Mr. Elias ayaan kusoo jiidayaa waxaan ku laabanayaa isla meeshii ayaan ku laabanayaa waxaan leeyahay PC settings okana sign in option markii aan idhaahdo waxaan leeyahay picture password طبعا
si loo adkeeyo waa in aan passwordkii aan ku furnaa mar kale choose picture ayaan leeyahay iminka aad ujeedaan ku jira open ayaan leeyahay saan ayuu usoo galay marka drag your picture the position in the way you want dhanka rabtid ayaad kusoo jiidaysaa halkan ayaan soo dhigayaa waxaan leeyahay use this picture marka set up your gesture marka wuxuu ku leeyahay draw these gestures on your picture you can use it any combination of circle straight and tips remember the size and position and direction of your gesture and the order which you make them become part of your password marka dhinacyada ayaa tegaysaa tusaale ahaan haddii aan idhaahdo halkan kan ayuu noqonayaa dhegta bidixda iyo gacanta hoose saan ayuu noqonayaa marka confirm ku sameeya ku leeyahay isha midig dhegta bidix iyo gacanta hoose finish ayuu noqonayaa marka iminka wuxuu ku xiran yahay kaas ayuu ku xiran yahay marka sidaan ku xaqiijinaa waxaan ku xaqiijinaynaa waxaan leeyahay log off ayaan leeyahay sign out ayaan leeyahay marka sawirkaaga saas ayaa loogu xiraa marka passwordkii waa kan marka passwordku waa Mr. Ilyas oo aan aragno marka halkanna sawirkiisa ayaad cad soo gelin kartaa waan soo gelinaa sawirkiisa marka switch to password ku samayn kartaa marka iminka balaan eegno isha dhegta iyo gacanta midig ujeedaa welcome ayuu ku leeyahay saan ayuu kusoo gelayaa markaan haddii aad doontid inaad sawirkaada gelisid sawirkii waxaa leedahay change account waxaan gelinaynaa sawir browse uu ku jiraa waxaan leeyahay choose waa kan uu soo galay uu noqday marka ugu dambeysa waxaad leedahay waa ujeedaa dushuu soo galay I want to sign out ayaad leedahay markaa u timaadid waa kan marka dhan kale switch passwordkana waa kan uu shaqeynaya haddii aad tiraahdid caadi ahaan passwordkaaga caadi uu soo galaya marka sign option haddii aadid waxaan doonayaa in aan ku furo sawirna waa kan marka sawirka ka wanaagsan sababtoo ah qof ku fikiri kara male inuu soo helo meel walba options ah oo location ayaad xulan kartaa marka haddii aan idhaahdo tusaale ahaan isha midig dhegta bidix iyo gacanta bidix طبعا ما shaqeynaya this picture password is incorrect try again isha midig okay ayaan leeyahay isha midig dhegta bidix iyo gacanta isla markii wuxuu leeyahay welcome ayuu leeyahay qaabkan ayuu shaqeynaya windowgina waa kan oo ujeedna marka waxaan filayaa cashirkan xiisaha leh oo aan ku barnay tawiga kala duwan ee Windows 8 iyo 8.1 halkan ayaan kaga baxaynaa software-da la socda طبعا waxaa ka download gareyn kartaa sologroups.com wixii macluumaad ahna info@sologroups.com mar walba anigoo ah Cabdinaas Ismaaciil inta wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu